kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi aad muhiim u ah oo inoo suurta gashay in muqdisho aynu kula yeelano madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya faqaamat ra'iis Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii dalkan soo maamulaya muddo 4 sano ah waa madaxweynihii ugu horeeyay 42 sano kadib ee lagu doorto gudaha dalka Soomaaliya waana sifo kaga duwanaa madaxdii ku horeysay lagu soo dooranayay mid ka mid ah dowladaha dariska aynu nahay waa madaxweyne ka soo galay madaxtooyada Soomaaliya dhanka akademiyada amaba bahda waxbarashada isagoo qalin wata yimid madaxtooyada Soomaaliya farxad baynu tahay faqaamat ra'iis Xasan Sheekh Maxamuud in dalsan aad ka aqbasho waraysiga ما سنتاويس معمل si aad loo soo degto application-ka Wafi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka adigoo ku qoraya Wafi marka uu ku soo dego dooro luqadda aad rabto English iyo Somali kadibna aqbal shuruudaha isdiiwaangelinta waxaad dooranaysaa dalka aad joogto iyo waliba telephone number-kaaga intaas kadib waxaad helaysaa 6 number oo xaqiijin ah kadibna gali 6 number ee xaqiijinta isdiiwaangelintada awgeed macmiil waxaad ku helaysaa 5 daqiiqo oo wicitaan bilaash ah sidoo kale waxaad ku shuban kartaa kaar ku hadal ah dooro halka ay ku qoran tahay recharge oo dalbo xirmada aad rabto inaad ku shubato waxaad doorataa habka lacag bixinta sida Mastercard Visa card iyo sidoo kale calling account kadibna raaci faahfaahinta kaarkaaga hadda waad wici kartaa dalkaaga hooyo sidii hore si ka sahlan oo $5 ku hel 100 daqiiqo oo ku hadal ah maadsanid macmiil intaas kadib toosan u galeynaa waraysigeenan kulan aad kaga qayb qaadatay xarunta looga hadlo arrimaha caalamiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada London ee Chatham House muxaadaraad ka jeedisay waxaad ka sheegtay oo kamid ahayd eriyadeeda tareenka doorashada Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 madaxweynaha soo raaca inuu dib u soo laaban laakiin waqtigaasi aad tilmaamtay inaan soo laabtaan ku dadaali doonaa ma aysan dhicin soo ma aadan laabanin sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya aragti ahaan seed u aragtaa maxaad ku qiimeyn lahayd هوس آدي هذا ومع سنتاي مركلة دلسن تي في يعني وعدي مهد علينا أنت أكيد بسأو شكته هاي الصومالية تاريخ دو أي لا هاي ودور شوين كوسابسن مرحلة ذكر الدون دلكو صومري سجار أوليبو بربر كمركو دعي كدب طبعا كسروا وجوه رئيسي طبعا صاروا نبضن دجال السكاية على هذا مال والبدلكو كباهين لا كلا قحي لا كلا ميرمي مجتمعي لهاي hal hayb oo Soomaali ah oo inuu kala meermay oo qoloqolooyin iyo qabiil u sii kala meermay wax badan oo dhibaato ah ayaa dhacay 19 ilaa 2000 inkastoo 10 sano laftooda dadaal ay soo socdeen Djibouti koobaad Djibouti labaad soo daro Qaahiro mar walba meel uu isku day oo ka socday Nairobi intaas haddana markii ugu horeyso isku day macna leh oo wax soo saara oo yimid waxay ahayd 2000 شركة عرتا ودولة جيبوتي ولا علينا مدحوين إسماعيل عمر قيلة وآدي سوق دبر جيبوك وقت كل بحي حوقي حور الجديان أي مهم سنة شركة سيد دولة دي رئيس الصوماليات بربر كده كدلتي أو ضدك الصوماليات أنتي سبضنا إسكور رأسيين ما بقول كيف بقول إلا ذا واسكت جيران لكن ضدك الصوماليات أنتي سبضنا إسكور رأسنا دولتكم ملجارة من دي لبس سنة عليه ذلك إن دولة دمك سوق لسه لجربه ayaa meesha ka timiday waa ka soo guurtay dawladda Djibouti xamaray timiday labadii sano aakhirkeedii waxooga xilliga markuu dhamaanayo kala guurkaas maareyntiisa howl badan waaye kala guurkii ayaa sidii la rabo noqon waay waataan ku noqonay Eldoradaan tagnay Eldoradaan ka soo guurnay haddana waxaan nimiday Embagathi dawladda haddana lagu soo dhisay Nairobi madaxweynaha la soo baarlamaanka la dhisay madaxweynaha la doortay وسوق جورني جوهران سوق دقني مدان دقني هذا أنا واقع جورني بيدبان دقني هذا أنا واقع سوق جورني مقدشان نمدي نباتوين بدن أنت أسمر أنت دقائق السماء لما نبلعين مقدشان نبكي وجانت أيها كدعي دجال ذي كدعي لما كي مدي محاكم الإسلامية هاي الدولة دوات إصدارات بربر بدن إذا ما شاف بدن على دعي
haddana waxaa lagu khasboonaaday in dibadda loo noqdo. Jabuuti lagu noqday. Jabuuti lagu noqday haddana mar kale waa la wada fariistay, waa la heshiiyey, haddana dowladda lagu soo dhisay, baarlamaanka la ballaariyay, dadkii is haysto dhan baa la soo geliyay, waa socotay. Sidaasaa marka haddana dowladda ay ku timiday. Markii ugu horeysay 2012 xamara la isku doortay. Anaa ka soo baxay, madaxweyne ku noqday. Doorashadii ugu horeysay madaxweyne ugu horeeyay xamar lagu dhex doorto. Muddadii ku meel gaarka ahay oo madaxweynihii iga horeeyay uu soo gabagabeeyay iyo dowladdiisii ayaan noqonay. Gunageed kuma soo dhamaataa la yiraahdo, laakiin dadka Soomaaliyeed intiisa badan siyaasadda markaas uun cod ku lahaa, saami ku lahaa, tala ku lahaa, inta badan waa uun joogeen. Waxna waa noo dhisnaayeenba markaasoo ku meel gaarnimadii iyo wixii laga soo baxay. 135 oday oo akhyaarteena odayaasheenna ah oo ilaa maanta weli noo jooga, badankooda wixii dhinta mooyaane, yaa soo qoray baarlamaanka. Ay dhaheen Cali xildhibaan noqonayo, Maxamed noqon maayo. Waa laga gudbay. Annaga markaan nimiday waa fariisanay, waa fikirnay. 2016 higsiga 2016 waxaan bilownay sanadkii 2013 shirki ugu horeeyaan qabanay. Dowlad goboleedyadii yaa ka soo qayb galay, wixii markaas jiray, wixii aan jirinna gobol ahaanay uga soo qayb galeen. Dadka diasporada ahaa ayaa yimiday oo dibadda laga marti qaado ka soo qayb galay. Dadka magaalada joogay wixii suurtagal ah yimid, warsaa wax la yeelaa. Infrastructure-ka siyaasadeed ee dalku u baahnay kaabayaasha u noqon lahaa inuu maqan yahay meesha ka caddaatay. Bas doodaas waa dheereeday. Waxaa la yidhi marka madal ha la sameeyo, Soomaalida ay ku wada tashato. Waxaan sameeyay fikirka meesha marka waxaa ka yimiday wax madal oo afka qalaad lagu dhihi jiray NCF, National Consultative Forum, oo NCF la dhihi jiray, oo ahayday dadka Soomaalida ilaa 80 iyo dhowr qofood yaa la isu keenay oo diasporada ku jirto, qurba joogtii, oo dowlad goboleedyada ku jiraan, oo dowladda dhexe ku jirto, qaybaheeda kala duwan, xukuumad leh oo baarlamaan leh ee ku wada jiraan ayaa la sameeyay wada tashi inay galaan. Shirki ugu horeeyaa dhacay. Ka bacdi shirar badanaa waxaa lagu qabtay, Kismaayo lagu qabtay, Baydhabo lagu qabtay, Garowe lagu qabtay, waa la wareejiyay. 2014 waxaa la soo aruuriyay fikirkii dadkaasi waxa jira iyo xaaladaha jira. Markii la iswarsado dadku waxaa 2014 waxaa la isku raacay inay adag tahay 2016 doorasho qof iyo cod dalka in laga qabto, laana wixii lagu qabalahayna ma dhisna, lagamana gaarsiin karo. Hadda eeg markaas waxaa noo dhiman almost 3 sano dhiman, sanad iyo jabbilaa naga baxay, 3 sano wax yar dhimanaa noo dhiman. meeshaas marka doorashadii 2016 in lagu hagaajiyo oo lagu sharciyeeyo oo lagu waxeeyo ogolaansho lagu helo. Asalka waxa ugu muhiimsan waxay tahay qawaaniin waa jirtaa, sharciyo waa jiraan, buugtay noogu yaalaan. Qawaaniin la'aan dalkan kama jirno. Dowladda muddo 30 sano soo ahay. Aqbalaadda waay dowlad dhisidda taariikhda kooban ay leedahay oo soo koobay waa intaas. Kadibna waxaan sameynay in aan maxaan ku iraahday aan si tartiib u wado. sidaasay marka taariikhda koobanood i weydiisay. su-aashaas waxaan rabaa inaan taas ku soo koobo. mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay. su-aalaha ugu badan ee muhiimka ah ayaan u gudbaynaa. 2012 waxaad ku soo baxday doorasho markii ugu horeysay 42 sano kadib ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya. 190 cod baad uga guuleysatay. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo isagana rajo badan ka qabay inuu soo laabto mar kale. warbaahinta caalamka waxaan akhriyay warbixin lagu daabacay oo ciwaan looga dhigay academic madaxweyne si lama filaan ah Soomaaliya uga noqday. ma filanaysay guushaasi doorashada ku soo baxday? dabcan aniga dalkan kama tegin, weligay waan joogay. wixii dhibaato dhacay oo dhanna waa joogay. nololo kala duwanna waa ku soo dhexmaray. hal nolol aan weligay ka bixin waxay ahayd nolosha macalinimada. 1981 aan macalin noqday. noloshayda intii ka dambeysay ilaa siyaasadda aan ka soo gala macalin u baan ahaa. 2012 ka hor marka anaa go'aan ku gaaray, aniga oo jaamacad madax ka ah, kambani weyn oo kontraktayaal caalami ah haystana madax ka ah, hay-ada caalami ana la taliya u ah, oo dakhliga billaha isoo galahay oo aad iyo aad markaas u badnay.
waagaas la joogay ayaan go-aan ku gaaray inaan intaan ka soo dhex baxo aan siyaasadda imaado. waxaan dib u akhriyey taariikhdaada waxbarasho ama shaqo waxaad la taliye ka ahayd hay-ado fara badan sida aad sheegtay oo barnaamijka kobaca qaramada midoobay uu ka mid yahay jaamacadda Oxford xarunta qaxootiga ama balaajiinta mu'asasada la yiraahdo Interpeace markiiska cilmi baarista iyo wadahadallada CRD adigoo dhankaas academic ah oo bulshada saa uga dhex jira khalfiyaadkaaga amaba backgroundkaagana uusan military ahayn because madaxweynaha ka horeeyay hanaanka ku soo galay madaxtooyada waa la yaqaana Cabdullaahi Yuusuf militariga uu ka soo galay Cabdiqaasim markaan ka boodno u laabano siyaad bare kula military ahaa ilaa xukuumadii 69 ku geey maxaad ku soo kordhisay adoo academic ah madaxtooyada Soomaaliya afar sano soo dhaafay kooban anaga horta de waa runtaayo in la militarize gareeyo siyaasadda oo la militariyeeyo siyaasadda waxyaalahan eednay ka mid tahay siyaasadda waa meel mustaqbal looga hadla sideedaba shalay loogama hadla siyaasadda mustaqbalkaa looga hadlaa militariguna waa fuliyayaal laakiin waxa la fulinayo ra'yiga iskala waaye marka ra'yigaas dadka iskale hadday dad askar noqdaan oo maxaanku iraahdaayey wixii soo baxaba wixii askarinimo uu aaminsanaa uu la aadi tago waa dhib askariyeentana dad badan oo rayid ahaa xataa maskaxda askarta dad badan haddaba maqlaysa dhaa dowlad xoog badana loo baahan yahay ciidan xoog badana loo baahan yahay kana loo baahan yahay anaga fikirkaas dadka aad uga soo horjeedaan ka mid ahay dowlad xoog badan aan u baahanahay laakiin xagga sharciga ku xoog badan ma aha dowlad xoog badan oo xagga qoryaha iyo bunduqyada iyo muxuu ahay ku xoog badan maaha xagga qaanuunka iyo sharciga kala dambeynta iyo ogolaanshiyaha dadka ay ka haysato dowlad ku xoog badan waa waxaan u baahanahay aniga marka waxaan ka shaqeeyey dhaqankaas in la sameeyo oo la aqbalo ra'yiga kaa duwan qofka kaa ra'yi duwan in la aqbalo oo aan la colaadin oo aan lala diririn oo aan la dilin ee la dhagaysto hadduu wax ka qaadasho ra'yigiisa loo ku anfacayn wax ka qaada hadduu ka qaadasho lahayn ra'yi qofkiisa leeyahay ayadoon la caynin oo la ahaanin ku ixtiraam laakiin ha ka qaadanin dalka waxaad madaxweyne ka ahayd 4 sano hadda marxalad doorasho ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalka uu ku jiraa dowladda iyadoo la sugayo oo maalmo dadku aad uga walwalsan yihiin doorashada iyo ku dhawaaqitaankeeda waa kan ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ku dhawaaqay filimkii golaha wasiirada oo kula qaatay internetka yiri waa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdaa nooc doorasho oo inta badan la isla waafaqsan yahay dalka ay ka dhacdaa sidoo aragtaa go'aankaas prime minister waa maasan yahay laakiin xigmad waxaa jirto af ingiriisiga lagu dhaho too little too late waxa uu ka hadlay prime minister aad u yar yihiin waqtigii oo in laga hadlay ahaydna mar hore soo dhaaftay prime minister horta aniga waa dhageystay warkiisa doorasho waqtigeeda ku dhacda ma dhihin prime minister wuxuu dhahay 4 sanaba dalkan doorasho ka dhici jirtay waa inay dhacdaa doorasho taasaa ka dhigan in waqtigeeda ay ku dhacdo 4 sano hadday dhamaato waa inay doorasho dhacdaa waa uun siyaasadda saas ma gasho siyaasadda mar walba inay specific ahaatay caddaato waa ifaham ma gasho waxa adiga ka wadid aniga haddaan doono sidaa uga wadi uma fahmayo si kalan u fasirana haddaadan adiga fasirin ra'yiga siyaasiga qofka iskale haddaan u fasirin dadka loo sheegay siday doonaan u fasiri karaan dambina kuma laha inay siday doonaan u fasirtaan marka horta waqti ma sheegin prime minister doorasho dhacaysa ma sheegin oo doorashada waqtiga dhacaysa ma sheegin noocay noqonaysa ma sheegin cidda maamulaysa ma sheegin su-aashana waxaan aniga qabaa sida loo address gareey ma ahayna waxay prime minister intuu saxaafadda u yeerto oo soo hor fariisto inuu yiraahdo barnaamijka doorashada ee dowladdu waa sidan saanu u dhaca waqtigaanu dhaca cidaana maamulay meelahaanu ka dhaca inta homeworkiisa soo samaysto shaqo gurigiisa soo samaysto inuu dadka hor yimaado laakiin khudbad yar oo sida la sheegay aniga ma huba nin wasiir oo golaha wasiirada ku jiro zoomka shirkiisa ka qayb galay su'aal oo weydiiyay ka jawaabisteedii bay ahayd waa ku dhiman tahay dowladda weli mowqifka doorashada inay caddayso waqtigii la cadday lahayna waa la soo dhaafay waxaa daata aan kala hadlahay 2013 inaan muxuu ahay 2016 maxaa dhacaya aan ka fikirayn hadda oo 2020 iyo mandatekii baarlamaankana asal ah doorashada
oo dhacaya bilo 4 bilood ma 5 bilood waxaan dhamaan ay ka dhiman tahay iyo inaan ka dhaxgala meeshaasi marka qaar waxa la yiraahdaa gar aan naqayso hadana kugu naqsan ayaa jirta 2013 dad ka fikirayseen in 2016 doorasho dhacdo 3 sanaad haysateen oo balamaha dastuuriga ay ku jirtay codii qof waad ku guul dareysateen waa maxay hadda eedaha u jeedinayso maba qarinin boo bilowgii aan ku sheegay factor sanad anagoon joogin aan dadka inta dhaxgalno weydiinay doorasho 2016 ma qaban kartiin one man one vote لأنه وحي أباهناد ما يالان لقمنا جارة لما سمين كرو مركز 3 سنة وحي اللي سمين وحي هذه day one لما كان مالتي يمادين إنه هوشاس بلعبان وأنا أشجنا وليبو أنا مالتي مدعويناه ما حد كتير هنا وهي أرجع مدين وقاعد مدعويناه مرة بقى إنه وحي مدعويناه بيرجع أشجع هالك عنك شغلة كم مدعين وهي أرجع مدين لكن ضوضياش الحب بأباهين ما وحيابها اللي جابي أيوب أنت وحي هذه day one هذا حفيز كيمادو waxa loo dhimanayo oo siyaasaddu waa in siyaasadda hagaagta waxa loo dhimanayo siyaasadda inay ka hagaagta ay tahay projectisko aniga meel ii yeelay oo haddii aan soo noqon lahay aan bilaabi lahay aan u sheegay choice adaa iska lahan tahay doorashada kamid ahayd maalintaad xafiiskan soo fariisato xafiiska dhex fadhin xafiiska madaxweynaha dhex fadhin maalinta xafiiskan soo dhifayso 2020 maxaa dhacaya hadda ka bilaabo shaqadeeda oo infrastructure-keeda haddii sharciga doorashada tahay xisbiyadii keedu dib loo eeg haday tahay dastuurka la dhameystir haday tahay maxkamadii dastuuriga ah oo la sameeyay haday tahay dawlad goboleedyada iyo federal states oo on board laga dhig haday tahay day one iska bilow intii aan shantii mashruuc aan u sheegay madaxweynaha mid kamid ah maanta bilowda ma jiro madaxweyne kuma shakinayo oraahda marka waxaan rabaa in laakiin waxaan rabaa in cadeyso qorshahaaga soo laabashada 4 sano oo ka bilaabaysay 2017 oo qoran ma ku wareejisay madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo maya de qorshahaas anu iga asba qorshow lahaa moogta madaxweynaha oo ku yimid xafiiska marka ka adiga xafiiska ku timid iska dhigay kan aniga xafiiska ku imid aan ku imaan rabay kana tilmaamtay oo ahayd qorshahan ku wareejiyay maxaa kamid ah maxaa ugu muhiimsanaa intaas marka laga soo fiiri madaxweynaha wixii official ahaayaan ku wareejiyay qadaayad waxa jiray xafiiska madaxweynaha laga maamulayay oo gaar ah jiray kuwaas de document ayaga oo file garaysan ku wareejiyay laakiin midaan ra'yi ahayd aan siiyay qoran iyo xil lagu wareejinay ma ahayn ra'yiga aniga aan qabay ahayd marka laga ma faa'iideysan soo jeedinta aniga ila qumaneed laakiin waa anigana wixii ila quman inaan madaxweynaha u sheegay waxaan dareemayay in ay mas'uuliyad saaran oo qof ahaan ay ahayd waa u sheegay choice ka iska lahay inuu qaato kuma eedeynaayo uma arag inay sax tahay laakiin aniga ma sax ila ahayd way aragnimadana sidaas intuusayso waana fikirka aan mar walba ku hadaaqi jiro aniga aan sheegi jiro ahayd qabyada dawlad dhisida Soomaaliya madaxweyne Cabdiqaasim ayadoo qabyaha ka tagay waxbuu meel u keenay Sheekh Shariif ayadoo qabyaha ka Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto meel uu soo gaarsiiyo madaxweyne inuu villa Soomaaliya oo dhex fariisto keenay Sheekh Shariif meel uu soo gaarsiiyo oo doorasho dalka inay gudihiis ka dhacdo oo transition laga baxo oo meel uu soo gaarsiiyo annagu waa sii wadnay xamar inta laga qaado dalka inay geed siyaasad waxbaan soo gaarsiiyo qof walba wax dhilo ku soo kordhi karaaye qof mucjiso inta sameeyay qof walba qabi uga tagay dalkii oo biibay maybe qabyadaas inay sanado badan 10 kale 20 sano 30 sano kale may qaadanay sidii hadba loo dadaalay ku xiran tahay laakiin madaxweynaha maanta joogana aniga kullayba kama sugaynin wax dhameystiran inuu keeno kan dabo hadda 2020 imaanayana wax dhameystiran ma keenay laakiin wax ku dara meeshii aan ugu imiday joogayaan wax ugu liito ugu hadii aad tijaabisay qabyada inaan loo ogolaanin qofka inuu dhameystiro oo ku fiicnayd 4 sano kale in loogu daro hadda qabyada hadaan soo koobno ka warramo madaxweyne farmaajo 4 kale la siiyo wax u qabyaanan garanay wax u qabyaa anaga waxa noo qabyaa waa sheegayna waa la yaqiinay madaxweyne farmaajo wax u qabyaa ma garanayna haday jiraan asay ku gaarayeen dadku ma sheegin anaga waa sheegayna wax noo qabyada aan rab inaan qabano way waxaan soo laabanaynaa warkii ra'iisul wasaaraha nooca doorasho oo 5 bilood marka hadda waqtiga baarlamaanka la eego November iyo waa waqtigu soo dhamaanaya dastuuriga ahaa dawladdan madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre oo 7 ama 2 toddobaad ka hor shacabka yiri doorashan qabanayna mid loo wada dhanyahay waaye oo waliba tilmaantay inaysan cadayn nooca doorasho dhici kara muxuu yahay doorashada aniga model gaar oo kana fiican iyo kana xun iyo kana Soomaali faa'iido u leeyahay aan leeyahay ma jiro aniga waxaan qabaa mid kasto laga tashado qaanuunka hadda jira la dhaqan gelina see loo dhaqan gelina sidaana loo dhaqan gelina intaana laga dhaqan geli karaa intaan laga ma dhaqan geli karo hal yiraahdo 2016 kii loo noqonaa xanta suuq ku jirta waay hal yiraahdo see loogu noqonaa ilan 2020 aan joognaa 2016 ma joogno
duruufihii 2016 jiray maanta ma jiraan fursadihii jirayna ma jiraan caqabadihii birigaas jirayna ma jiraan wax ka duwanaa jiro see loo aadaa haddii maya muddo kororsi seelo doorasho kasta oo laga tashado oo la isla fariisto la isku raaco taasaa laakiin caqabadaha tilmaamayso dastuurkii weli ku meel gaar waaye hay-adihii garsoorka qaar baa maqan amnigii inta 2016 aad tilmaamayso aad leedahay duruufahaas ma jiraan inta badan weli way taagan yihiin aad iyo aad waaba sheegayba waxba kuma soo kordhin siyaasadda iyo dhismaheeda 2016 meeshay joogtaa waaba tan leeyahay 2017 in laga bilaabay ahayd oo ilaa maanta muxuu ahay la garanayo waxna laguma soo kordhin deegaanadii lama xuraynin dastuurkii lama waxaynin maxaan ku irahay xisbiyadii lama dhammaystirin dowlad goboleedyadii infrastructure-kii dalkaani dowladdaana caasimadday ka talisay dadkii ka talinayay tala lama siinin bal colaado iyo caqabado hor lahaa la dhigay marka waa run waa waxaan leenahay dalkan 2016 meeshii looga tagay uu joogaa waxba kor uma soo kicin waxba kuma soo darsoomin dowlad dhisidana waataan dhehayna waa mid la dul saaray war waxba lama dul saarine marka ma garanayo aniga ninkii dad iyo raggii taladoodu meeshaan lagu soo gaaray ha loo daayo talada maanta ayaga haddana wax fiican keenaye anu ma qabee waxaan qabaa caqli fiican hadday leeyihiin talada dadka hala tasha caqabadahaasi haddii waqtigaasi jiraan oo maantana tilmaamaysa in waxba laga qaban mudan madaxweyne maxaad u qaban weysay inaad maxkamad dastuuri ah samayso dastuurka ku meel gaarka uga saarto guddigii adeega garsoorka aad samayso intaas kooban 4 sano si gaar ah maxaad uga qaban weysay caqabada ka qabsata maxay dalka horta waxa waaye nin dictator oo dalka iska haysto asiga kaligiis wuxuu yiraahdaa soconaan maaha waa political pluralism siyaasad loo wada dhan yahay tiro badan dalkan anagu dhaqanka aan ka qaadanay madaxweynaha kaligiis wax ma xukumo laakiin odagii waay initiatives uu leeyahay waxba uu riixi karaa miisaan uu leeyahay يعني wuxuu leeyahay taathir ama influence uu leeyahay dadku waxa مثلا hadaan mid kaaga soo qaado guddiga adeega garsoorka dastuurka tilmaamayo sida uu ku imaanayo uu ku dhismaayo 9 qofood oo ka koobma 9 qofood dabcan kuma qorna dastuurka laakiin waa iska garanaysa waa 4.5 afar beelood oo min laba iyo beesha shanaad oo hal ah yani fikirka spiritka lagu sameeyo guddiyada dhan oo dastuurka ku qoran waa sidaas guddiga maxaan ku iraahdaa constitutionka waa 5 xubnood waa 5 beelood wax kuwa kale inta badan waa 9 xubnood waa sidaas marka waa soo qaadnay xukuumadda biriga joogtay iyo xukuumadda waa la soo qaaday waa la waxeeyay sida ay ku imaanayaan 9 qofoodna waa la garanayaa 9 qofood qaarna waa in la keena oo yimaadaan qaarna waa waxa la yiraahdo ex officio oo xafiiskaas inuu madax ka yahay daraadeed uu qofka guddigan uga mid noqonaya qaarna waa la soo xulayaa waa la soo dooranaya dowladdii horta koo waxaan dejinay sharcigii guddiga adeega garsoorka lagu dhisay aan horta sameynay establishment law sharcigii guddiga adeega garsoorka lagu dhisay yaan sameyn baarlamaanka la geeyay xukuumadda waa la ansixiyay waa la aqbalay guddiga adeega garsoorka xubnihiisii yaan dhahnay yaa dhiman xeeralaalyaha guud qayb uu ka yahay waa joogaa xeeralaalyahan leena gudoomiyaha maxkamadda sare qayb uu ka yahay waa joogaa gudoomiyaha maxkamadda sare muxuu ahaay waa leenahay 5 kale siday ku imaanayaan waa la sheegay waxaa la yidhi 2 qofood waxay ka imaanaysaa ururada oo garso sharci yaqaanada dalka ka jira xukuumadda keenayso 2 qofood oo loo qaateen oo dadka Soomaaliya prominent secretary madaxweynaha yaa soo propose gareynay keenay 4 Soomaha adiga dadku sidaas u koobnaa waa meelay kala lahayd aad u madax xasuustay waa keenay dadkii waa soo magacaawin looyaradii waa u dirnay xukuumadda kuwii keenaysa waa keentay madaxweynaha kuwa ku diri lahaa waa ku daray intii in la doorta ay ahaydaan keennay baarlamaankan geynay maxaa ka maqan marka 4 la keenay iyo 2 kale oo la magacaa oo xafiisyada joogto xeeralaalyaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare qof kala jirto xafiis aydan ka imaanaysay 7daas yaa joogto 2 maqan 2da lama keeni karin waa gudoomiyaha maxkamadda sare oo maxkamaddii sare aanay jirin iyo gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee dastuuriga ah oo guddiga xuquuqul insaankana aanu jirin laakiin waa ex officio markay gudoomiyaha maxkamadda sare ninka soo noqdo guddiga adeeg garsoor ku fadhiisana gudoomiyaha guddiga madax bannaan xuquuqul insaanka qofkii noqdana guddigu fadhiisana marka mana jiraan waxaan dhahnaa marka
واي ما يجري واي guddiga adeeg garsoor guddiga oo maxaa ma samaysa maxkamadda dastuuriga marka digaagadii maxkamadda dastuuriga ma dhismi karto guddiga adeeg garsoorka hadaan u dhisnayn guddiga adeeg garsoorka maxaa loo dhisi waay maxaa loo dhisi waa badda hadda kaaga sheekeynayso ma guddiga adeeg garsoorka waa soo qaadnay package-kiisa baarlamaanka keen waa inuu baarlamaanka ansixiyaa muddo baarlamaanka haystay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wuxuu yiri guddiga adeeg garsoorka baarlamaanka wuxuu leeyahay qof aan u ansixinayna ana waxaan dhahay oo ansixiyaan dhahay dadka ma anaga leenahay kay soo celiyaan mid kale Soomaali ah oo noociisa qualified ah la keenay si kasta hadii la yeelo baarlamaanka waa ka soo saari weynay waay maxay taas baarlamaanka in la weydiiyo dadka joogay ku fiican tahay maxaa mareynaysaa laakiin annagu waa ka soo saar kalsooni darrada Soomaalida ka dhex jirta iyo qabaa'il hebel waa reer hebel lagama keenin iyo reer hebel meesha ka maqan iyo wax la mid ah ayaa guddiga adeeg garsoorka lagu waayay guddiga baarlamaanka ansixin waayay guddiga adeeg garsoorka mid kale qaar baarlamaanka mid mooshin keenay waxayna la soo dhameystiro war ma dhameystirmaayo waa u sheegnay gudoomiyaha uu u sheegay xataa baarlamaanka maxkamadda dastuurka madaxweyne in guddiga adeeg garsoorka dalka uu waqtiga dhismo waayo eediisa baarlamaanka waqtigaas jira askale aniga dhinacayga ha waa ka soo dhamaatay baarlamaanka ansixin waayay meeshaas ku hakatay aniga waa bilim gareyn ma dhaayo asbaabtooda ay qabaan laakiin waxyaabo badan oo dalka in loo qabtay la qabay kamid yahay maxkamadda dastuurigana ma dhismi karin guddiga adeeg garsoorka hadii aanu dhismin waxa hore guddiga adeeg garsoorka guddiga markii hore dastuurka laga fikirayaan aad looga fikiraan aniga qiyaasa dastuurkeenu waa ogtaa qabyo waa meel badan iska hor imaanaya waxyaabo badan oo jira maxkamadda dastuuriga asay u dhisantaa guddiga adeeg garsoorka waa inuu jira laana guddiga adeeg garsoorka dhisaayo maxkamadda dastuuriga uu leeyahay constitutionka soo maaragtay waxaan markaas waa isku daynay intii aan bush gareyn karnay mid kale kaas halka ajando noo yaal ma ahayn boqolaal ajando oo mid walba waqtigaaga jiidanayo oo daladaada jiidanayo oo muxuu ahaa dad isku keenidis oo rabay ahayd hore u soconayna waraysi asiisay VOA-da waxaa iwaan looga dhigay kama dhici karto doorasho dee popular ah oo qof iyo cod ay ka dhacda hadda hadalkaaga ayayna ku jirtay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo muddo dheer shaqeynaya muxuu qabanayay waqtiga 4 sano ah ilaa maanta muxuu qabadkiisa guddiga horta dee waajib dastuuri oo ah in la sameeyo waan sameynaa annaga waa la dhisay laakiin dalkii doorasho oo qof iyo coda kama dhici karto oo universal suffrage maadaama la yiri guddiga qaranka ah ma ka shaqeyn karo doorasho dadban qabaa'il dhexdood ma ka shaqeyn karo laana guddiga doorashooyinka qaanuun uu ku shaqeeyaa qaanuunkana ma tilmaamayo qabaa'il iyo macaamilkooda ma tilmaamayo guddigu marka kama shaqeyn karin marka asagoo guddigi jiro ayaa annaga waageena guddiyo kale aan la sameeyey si doorashada u dhaqan gashay u socoto haddana haddii qaanuunka la dhaqan geliyo guddiga waa shaqeyn karaa haddii doorasho dadban iyo 2016 loo laabanaya waxaa la yiraahdo guddiga maanta jiro ma shaqeyn karo qaanuunkiisa ma u ogolaanayo inuu ka shaqeeyo wax qaanuunkiisa ka baxay waa caqabad kale Soomaaliya Soomaaliya wajahaysa dabcan laakiin de guddigan inuu shaqeeyo guddiga eed ma laha shalayna siyaasada caqabad ku noqotay oo gacmaha ka xirtay maantana siyaasada caqabad ku waa farsamooyin yar yar iyo wax qalqaldaan iyo wax lagu eedeeyo iyo tuhumo iyo wax waa iska jiri karaan oo environmentka Soomaalida wada qabo laakiin waxaan asalba waxay u dhimanayaan meesha la yiraahdo eelay markay heshiisaa gelay biyacta siyaasadda markii laga heshiiyo guddi doorasho iyo mid amni iyo mid garsoor iyo markaas ka bacdi shaqay karaan waxaad ka hadlaysaa meel aad muhiim ugu ah marxalad siyaasadeedka dalka uu marayo daawadayaashana aad u danaynayaan haddii qof iyo cod doorasho ah aysan dhacaynin oo loo laabanayo wax la mid ah doorashadii 2016 guddigan doorashooyinka ee xalmeeri hogaaminaysa ma shaqeyn karo ani saasan qaba ra'yigayga waaye ma shaqeyn karaan qaba sabab guddiga dee qaanuun uu leeyahay fiir guddiga laba qaanuuna oo mas'uul ka yahay oo dhowra qaanuun waa midka asiga lagu dhisay establishment law kii lagu dhisay waa inuu ilaaliyaa oo dhowra qaanuunna waa kan doorashooyinka oo inuu dhaqan geliyo mandate-ka oo haystaba ay tahay inuu dhaqan geliyo haddii marka muqa curubta codka malabka dhaxda oganeed takada iscelin horta carabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga muqa curubta codka malabka dhaxda oganeed takada iscelin horta carabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga doonto caadi maaha mahamaha xalabsan leedo caadi maaha mahamaha
عقلي بدنتو عادي معها وعيوني عادي معها وسويو عادي معها معها وعدونتو عادي معها معها حمصن ليلو عادي معها معها عقلي بدنتو عادي معها وعيوني عادي معها وسويو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مeel kastoo aad joogtaan daawadayaal habeen wanaagsan maalin wanaagsan qof kasta xilliga ay u tahay ayaa mid laga heshiiyey nooc kastoo aniga ila fiican qofowna la fiicnayn muhiim ma ah marka midda aniga wataa ila qurxoone taas haddaan mid ugu qurxoon aniga aan la imaado laakiin dadka siyaasadda ay ka dhexaysa qaarkood ay diidaan aniga waxaan qabaa lama khasbaayo lamana jujuubayo laakiin totally doorasho cod iyo qofa kama dhici karta dalkan waaba kuu sheegaya haddii lagu heshiiyo way dhici kartaan kulle hal qof iyo cod qof iyo codaa dhici karta laakiin dee qof iyo codka in la micneeyo u baahan bilood boqolkiiba qof iyo cod haddaad ka wado doorashadii waa la qaadaa ceelka geela nagu biyaha ka cabaa la geynaa tuulada beeralayda xagga ku taalana waa la dhigaa degmadana waa la geynaa haddaad ka wadahay suurtagal ma ah laanna dhulkii qaybo badan oo kamida maba la tegi karo lamana aadi karo haddii aad ka wada laakiin war waa soo korayna 135 odaan ka nimiday 14,000 iyo dhowr boqol oo qof oo codaysaan ka nimiday maanta aan sii kordhino 100,000 oo qof ama milyan qof ha codayso aan gaarsiino ilaa markaas beel ma ahane waa qof iyo cod laakiin qof iyo cod oo weli wax ka dhiman yihiin waa qabaa inayna fiican tahan qabaa oona anni la yeeli karaan qabaa meeshay maanta wax ka dhici karaan say wax u dhici karaan kalsooni lagu wada qabo leesla haayo darfaha laga wada haayo leesla meel geynaayo weli waa la qaban karaan qabaa laga tashaday u baahan tahay siyaasadda hadda bannaankaad ka joogtaa xisbigii iyo marka laga soo tago madaxtooyada oo aad ku jirtay oo saaxiibka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii ka dambeeyay madaxweynaha qarankeena Soomaaliya ah wixii ku haystay marxaladda hadda lagu jiro oo kala hadda haysta waan qiyaasi kartaa caqabadaha madaxweynaha filla Soomaaliya jooga oo wajahayo way aragnimadeeda ayaa leedahay waxaan dib ugu soo celinayaa maalmihii doorashada 2016 ka horeeyay ama la isu diyaarinay ama lagu guda jiray waxa la leeyahay awoodda doorashada waxaa saameyn ba'an ku lahaa gacmo kale ama caalami ha ahaadaano ama gudaha ha ahaadaano pressure ka badan kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jiray lagu daray kuraasta qaar si daahfurnaan ah looma maamulin oo dad baa la dardaray la marooqsaday waa waxa dadku ay aaminsan yihiin laga yaabana in daliil far badan loo hayo arrintaas seebay ku timid laba waxyaabood aan rabaa inaan kala qaado midda barasharka caalamiga iyo naqdiga iyo waxaan iyana qaybaan rabaa inaan ka dhigo doorashadiina dad baa xoogaa la gacan marayana mid kalaan ka dhigay ra'yiyo kala duwan meel qaarkood waa ku qabnay waa ku kala ra'yi duwaneen meel qaarkood laakiin gacan maroojinna ma jirin ra'yi ay dictate gareeyeen oo saan annaga niriya hal yeela aan ma jirin si aanay u dhicin taasne waad ogtahay oo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo aniga madalaan lahayn speakerka baarlamaanka ku jiro ra'iisul wasaaraha ku jiro kulli lagu wada tashanayay bayaanadii la soo saaray weli waa rekoorkay ku jiraan waa yeelan waa arkartaan wax bayaanadii la soo saaray wax laga heshiiyey waxaan ahayna lama samayn annaga guddiyaan samaynay heer federaal iyo heer dowlad goboleed leh infrastructure-kii aan dhignay tababaraa la siiyey maaliyad waxay u baahnayeen dowladdu waxay kartay iyo wixii caalamku kaalmeeyaa la siiyey doorashada horta sidaasay ku dhacday laakiin ilaalma waa jirtay midda damboon u imaan doono oo dadka inaan la abuse garaynin iyo wax lamida iyo dad badanaa ilaalinayo guddiyo oo khilaafaadka la yidhaaho ilaaliyo Soomaali ana waa joogeen goob kastoo doorashada ka dhacaysay internationalkuna waa joogeen waa ilaalinayeen marka daqdi ma ahayn meeshaan xoogaa qaabdaraa ka dhacday in la yidhaahdo daqdi ma ahayn waa qodobka kale koobkan waa buuxaa iyo waa ber koobkan waa buuxaa iyo waa eber waxbaa u dhaxeeya annaga Soomaali haddaan nahay labadaasaan ku dhib qabnaa koobku waa inuu ama buuxaa ama waa inuu eber ahaadaa macquulna ma aha mandiq ma aha nolosha caadiga ma war annagu wixii aan qaban karnay ee suurtagalka ayaan samaynay wixii wax ugu fiicnayaan samaynay maba ku doodaynaba weligeena kuma doodin mara qaban nin ku doodi karo inuu maantana joogo ama birida soo socotan uu imaan karo doorashadu khaladaad waa ka jireen laakiin khaladka ugu weyn oo doorashooyinka ka dhaca maxaa ah in la isdilo oo dhiig daato waay 2016 doorashadeeda 2 qof ku dhimatay
nina tooreeyaa lagu dilay tooreeyaa nin kaloo caraysan inta u yimid oo ku dhuftay waa u dhintay nina xabadaa lagu dhuftay 2 qofoodaa 14,250 qofaa codaysay dad 1,000 qof ku dhowna waa ka shaqaynayeen doorashada waa ku dhex jireen labadaas incidentia horta violence wax ku saabsan ka dhacay si waxa la siin labadaas dhacdo sidoo qabay iyo shuruucdii lala aaday iyo wixii uu beelaha dadka isku dhaqayeen hay'adii ku shaqalaya yaa xalliyo lala aaday waxa soo haray qofaa la riixay iyo qofaa xoogaa la gacan maruuji iyo midaa laga dhacayo doorasho sideedaba dowladda iyo infrastructure-ka jirahay waxay ka shaqeeyaan doorashada inay fair noqoto dadka inaan la dilin inaan qoryo loo qaadin inaan la handadin inaan la waxaynin dabcan annaga wixii barbarashaan ahayn dowlad goboleedyadaa joogay maamulaa ka jiray ayagala sidooda barbarad ahay gudiyada aan waxayna ahay cilada waa dhici kareen laakiin aniga ma arko wax weyn oo dhac arrimaha doorashooyinka inaan ka gudubnaan rabnaa oo mowduuc kale u gudubno laakiin waxaan rabaa labadan su'aal inaan kusoo koobo cabsi intee la eg baad ka qabtaa in coronavirus uu saameeyo doorashada Soomaaliya aniga waxaan qabaa madasha muxuu xisbiyada qaran siyaasiyiinta ku jirtan ay qabaan cudurdaar ma laha doorashada coronavirus cudurdaar ma aha shabaab cudurdaar ma aha dalal annagoo kale ah oo duruufahayna similar ay leeyihiin مثال haddaan usoo qaado maali dalka la leeyahay oo ay boko xaram haysato oo argagixisada mus haysato oo dhibaatooyinkeenu kala qabo oo ciidan nabad ilaalineed ay joogaana doorasho qabsadeen markaasaa round labaad weliba inta lagu noqdaa maalmo kadib roundkii labaad haddana muxuu ahay doorashadii yaa lagu celiyey waa example nool oo taagan wadanka Kuuriya koonfurta Kuuriya waa naga horumarsan tahay waa naga mutaqasim tahay laakiin corona markuu biigga marayay oo meesha ugu sarreysa marayay ay doorashada marka cabsi ah doorashadan in coronavirus uu saameeyo kuma jirto dadka Soomaaliyeedna hadda siday iskula jiraan si isaga badan isuma imaanayaan doorasho haddaba dadka isku dhex jira waan isla jiraa sida hadda dadku ay u nool yihiin suuqa bakaaraha loo wada joogo iyo inta isla joogta in ka badan doorashada meel isugu imaamayso doorashada waa in waqtigeeda dhacdaa cudurdaar uma noqon karo coronavirus waxaad madaxweyne dalkan ka ahayd 5 sano oo 6 bilood dhiman dastuurkan waxaa ku qoran 4 sano oo dhammaystiran 6 bil ayaa taraaraxdeen ereygaasi mar baan wareystay gudoomiye hore baarlamaanka wuxuu yiri taraarax bay naga ahayd hadda cabsi waxaa jirtay ahad ama hadal hayn extension amaba in waqtiga la qaraaray in taraaraxdo imisa ayaad is leedahay way u furantahay dowladda jirta sanad 2 sano 6 bilood waxba uma furna sababta aan ku sheego waa sababeynaya waa ku sheegay dowladdan haday hore u soo bilaabayeen mashruuca oo socolahay ninkan meeshaasna waa kasoo gudbeen caqabadaasi kasoo gudbeen kanay kasoo gudbeen waxaasay soo dhiseen kaasay qabteen kanay qabteen war haddana waa u jeednaa macquulay ahaaleed oo weliba tala ku timaada ayadana war dowladdan waxna ma samayn 4 sano la joogaa doorashada iyo siyaasadda ay dowladdan doorashada dowladda ka hadasho warkii maalin dhaweyd ra'iisul wasaaraha hadda ii sheegaysaa ugu horeyso uguna dambeysay waxaad ugu qurux badnayd qof dowladda ay la joogo oo xafiiska ah laakiin tilmaamaan ku siinaya dowladda waxbay qabatay doorashada axzaabtii wala diiwaan galiyay maamul goboleedyadii waxbay ka qabatay xiriirka caalamiga ah waxbay ka qabatay dhaqaalihii waxbay ka qabatay haddana doorashada dhacayso ay sheegtay waxaas oo dhan doorasho ma khuseeyaan malaayiin dollar haddaan leenahay doorasho ma khuseyso ma khuseyso doorasho laakiin waxbay qabatay maya wax qabadka aniga aan ka hadlayo aniga adiga hal meel haddaan isla aadino dhowr meelood kale aadin waa wareerayna markeedaan ka hadlaa caqabada dhaqaalaha iyo amniga iyo wixiisa maalintiisaan ka hadlaa iyadana fankiraan ka qabaa laakiin markay timaado doorasho waxaan rabaa inaad ii sheegto maalin dhaweyd oo prime minister ku hadlay maalin ka horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraheena mudane xasan cali khayre ay inta meel soo istaageen ee doorashada waa sidaan xaalkeedu waa sidaan ay yiraahdeen one day one statement ii sheeg kama ayan hadlin waxna kama qabanin ma ku kalsoon tahay hadda inuu amray ra'iisul wasaaraha xukuumadda wax kale inaysan ka shaqeynin muddada u dhiman oo doorashada ay ka shaqeeyaan kama shaqeyn karaan aan qaba haddaanay dadka la tashan keligood ma meel mari karaan waagii keligood ay meel mari kareen waa soo dhaafeen hadda geeddu waa inay talay ku jirtaa ma meel mari karaan waa ka sii darayaan dhibaato hor leh soo kordhinayaan hadday isku dayaan inay keligood meel mariyaan waa ka soo dhammaaday waqtigii 4 bilood 5 bilooda dhiman waqti wax lagu qabto uma dhinna waqtiga kaliya wax dhimanaa mandate cusub iyo talo cusub ra'yiga dadka inay ra'yi weydiiyaan nimankan ilaa mandate-kooda uu ka dhamaanayo weli kursiga qofku haysata ma laha laakiin mandate-kooda muxuu ku dhamaanaa qatar uu ku sii socdaa dalka ma qar laga rida way aragnimo uma lihin
dowlad sharciyadeedii dhammaatay dowladda bedeleeda aanay joogin jidkana aanay ku soo jirin oo soo muuqanin waxna soo maray ma aha 20 sano hadda dowladaha ay noo soo jireen marka waxaan u baahannahay dowladdaani waa inay hurdada ka kacdaa hurday ku jiraan hurdada waa inay ka kacaan maxay ahayd midowga murashaxiinta waagii xilka madaxweynaha uu ka dhamaanayay shirka jaraa'id ay ku qabteen inta hadda aan leedahay ilaahayeen war madaxweyne xasan sheekh nooca doorasho ma sheegin ma diyaarin isla eedahan ayay ma qabanin aniga eedaas waxaan qabaa ma qabanin laakiin madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumadda maanta joogta way qabataa aniga ma qaban 2 sano maalintay statementka saarayeen 2 sano ka horeysa doorasho laga soo shaqeynay qaarkooda ka qayb galay nimanka saa u hadlayay qaarkooda ka qayb galay muxuu ahay shirarkii doorashada lagu soo sameeyay qaarkooda xukuumadihii dalka soo maray ku jiray oo wasiir ka ahay ama madax ka ahay markii laga hadlayay doorashooyinka dalka sidee u ekaadaan mas'alada la soo waday annagu eedaas nama qabanaan leeyahay maantana madaxweyne farmaajo iyo Ibrahim Xasan Cali Khayre haday dalka soo mareen waxaas eedda ma qabatay ha laga deeyaan dhiilaan dad bisilaan nahay aqli aan leenahay mas'uulaan nahay meel cidla ina wax ka eedayna ma rabno laakiin waxaan ka hadlaynaa waa fact haddii wax ay soo barbar dhigayaan sidaad u sheegtay waa nimanka soo waraysa miiska noo soo saaraan waxay qabteen war waa naga dhuntay tan waa khaldanay raalli ahaadan leenahay waa ka garaabayna waana la qaadanayna waxaanan qabanay oo doorashadii iyo siyaasadda ku saabsan maxaa u arkayseen bal wixii la qabtay burburin nimanka maanta dowlad goboleedyada meesha kala marayaan waa taqaana doorasho sideedaba aan mid ku sheego hal jaho haddii doorashadu ay qabato wanaag kuma soo dhammaato si kasta u wanaagsan tahay xataa wanaag kuma aqbalaad ma helayso jubbaland doorasho laga qabtay dowladda maamulka jubbaland qabtay dadaa ka qayliyay waa ogtii koonfur galbeeda dowladda federaalka ah ay qabatay doorashadoodu ayan ahayn inay qabatay dhiigaa ku daatay dadaa ku dhintay kuwaa maanta ku xirxiran kuwana hantidoodii ku maqan waa la garanayaa soo tad mar u qaati billaah ka istaagtay Jubbaland iyo dhismaheeda mudane oo 10 madaxweyne lagu doorto maana ka hareeysan u wada markii daba sootaan keenay mid la isku raacsan yahay oo la kala dambeyn baydhabo 6 gobolaan maamul iyo 3 gobolaan maamula iyo mudaaharaad iyo shoobar 7 jeer inaan safroon ku noqdo dhex fadhiisto dadka maxaa rabtiin kan ma soconaya kana soconaya aan ka doodno aan sootaan markii daba isugu keenay inay dowlad dhistaan waxay sootay xukuumadda hadda jirta ra'iisul wasaaraha dhowr bilood cadaado iyo doosamarib u dhaxeeyay oo galmudug mid ah uusan keenin galmudug mid ma keenin dadkii soo taagtaagna qaarkood qoorta ka soo gooy dad ra'yi qabay oo dowladnimo meel taagnay oo soo difiid gareeyay ma soo accommodate gareynin waxa inay kala cad yihiin al rabaa ahlu sunna waa joogtay birgin waa joogtay ahlu sunna ma fiican tahay maxunta ma ka hadlayno siyaasadda sideedaba grievances ka dhashay actions oo dhusamareeb ka dhacay waa nool yihiin wali maalin maalmaha ka midana way nagu qarxi karaan haddaan weli soo waa amaanan u soo jeedinaa madaxweynaha la doortay ninkii aniga aan taageersanay ma ah oo galmudug aan doorashadeeda ku taageersanay ma ah laakiin markii la doortay ka bacdi waxa uu sameeyay waana ammaanay haddana weli waa sii bogaadinaa inuu dadka isku doono dib isku soo celiyo boogihii dhayo isagu laakiin dowladda federaalka ma ahan dowladda federaalka daqaray geysatay booga ma dhayo hanaanka loo maray total waad ka soo horjeedaa ahlu sunna loo wajahay oo meesha violence aniga sideedaba wax violence la yiraahdo ka soo horjeedaa seerabtay in ahlu sunna wada hadal waa lagu dhameey karaan qaba annaga waqtiga nagu yaraada moogiye bariyi ugu dambeeyay meel fiican cilaaqaadkeena soo maray meesha aad tiri Axmed qorqor madaxweynaha hadda ma taageersan ninka aan taageerayo ma aha ninka aad taageerisay oo meesha ka weysay kuwa aha rashiintii ordaysa mid kamid ah taageeray oo aan qorqor Cabdiraxmaan Dawaa qor aan ahayn Cabdiraxmaan Dawaa kuma qanacsaneen wadada loo maray doorashada sax ilama ahayn kana laakiin markay dhamaatay ninka odaga meesha loo doortay markaan aragnay sida uu dhaqmayo sida uu hadlayo sida uu rabo inuu wax isugu soo jiido waxaan dhahnay ninkan fursad la siyaa la kaalmeeyo annaga ka siyaasiyiin ahaan xisbi ahaan waa kaalme waa ku taageernay marka go'aankan ah in hadda liiska wasiirada ay wasiiro ka yihiin wasiirka Axmed Fiqi iyo Saabir talooyin taadamiyo ku maya xisbiga UPD taladiisa kamid ahayd ninkii madaxweynihii markii dad badan ay macluumaad ka keeneen oo dadka la hadlay war ninkii hala kaalmeeyaan annaga hadda wasiirra meesha looma doonan laakiin markii la tagay oo leeyahay wixii halala hagaajiyo wixii dhameystiran halala dhameystiro de ragga qaarkiisu qabsaday raggan inay ila shaqeeyaan armaa dhanka galmudug saaxiibka odawaa waad weysay xukuumadda waxaa ku jira saaxiibka Xasan Cali Khayre oo barigaagii aad kula soo shaqeeyay madaxtooyada waliba waxaan hayaa in warqad qortay
oo aad ku dalbanaysay xogayaha igaad inuu noqdo meeshaas isla gaarteen saaxiibkaaga hadda waa sida saaxiibtinimadina waxaan rabaa xasan cali khayre horta muwaadin Soomaaliyeed waay waxa warqada u qortay kan la dhahaana waa wuxuu xaq u lahay annagana waajib ay nagu ahayd ururka igad xogayiisa guud Soomaaliya weligeed ma qaadanan inaan qaadano waxay nagu ahayd dowladnimadeena waxbay u ahayd qofkii markaas nala qumanaaday danaynayay ama dhaqaaji karaana aan isdhahnayna asagoo ahay warqadan u qornay waa u loobi garaynay waa nalaga aqbalay meel dhexe daba markii dambe ay ku baabaaday nin muwaadina oo quality-geedii loo qaban karan anaga markaas waa u arkayn waa qodob taas igadan u sameyn waxyaalo kale badan way madaxa maaliyadda oo lahaga mar ma noqdo xasaar khayr ma noqonin maxuu ahay de nin NGO ka soo shaqeeyay ka soo shaqeeyay shirkada ka shaqeeyay aragna anaga soo u arkayn waa qodob maalintii ra'iisul wasaare laga soo dhigay mudane xasan cali khayre oon ogaanay in ra'iisul wasaare annaga rabitaankeena loogama dhigin annagu ma geynin madaxweyne farmaajo nagalama tashanin tala kumaynaan lahayn laakiin nin saaxiib ah oo meeshii hadda yimido jooga waa shirnay waxaan go'aan ku gaarnay in la taageero weliba raggii aniga ii dhadhawaayey waxaan weliba go'aan ku gaarnay xukuumadda oo dhisi doona xataa inaan laga mid noqonin si aanan culays loogu noqonin oo baakejkii hore soo noqday iyo dadkii hore soo noqday iyo balaayo iyo propaganda aanan loogu furin yaanan xukuumaddiisana laga mid noqonin waxa uu rabana ha loo sameeyaan dhan message-kaas asna waa u gudbinay madaxweynahana waa u gudbinay waa kow markii ra'iisul wasaaraha la dhaariyey aniga bishii maarso bartamaheedaan inta ka tagay turkiyaan aaday turki anuu jooga ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumad soo dhisay xukuumaddii intaanba baarlamaanka la geynin sidii marar badan annagana lagu samayn jiray yaa waxaa lagu sameeyey preemptive strike yacni horudhacaa lagu sameeyey oo diidmo ah 100 iyo dhowr xildhibaana waxay soo qortay mooshin ah xukuumaddaas lamaba keeni karo baarlamaanka laanna balansid ma ah kan ma ah kaas ma ah tomay laba ciladood aadan uga naxay runtii yacni caqabad haddii hadda dowladdii hadda bilaabanaysa haddii caqabad la hordhigo dib u dhaca iyo mushkiladaha iyo 4 sano kooban sida yaa ii muuqatay waxaan sameeyey WhatsApp group anaa gacanteyda ku sameeyey waxa soo socota sheekada 100% oo in loo qaado ah qaybtan ku leeyahay ra'iisul wasaare inta isoo wacay ma dhihin madaxweyne niyow dhibaan haysteen kaalmay madaxweynuhuna ima dhihin anaa waxaan dareemay dowlad Soomaaliyeed xukuumad cusub hadda la dhisay dowladdiina hadda cusub tahay caqabadaha lagu noqon WhatsApp group inta sameeyay 200 xildhibaan ku dhawaad oo baarlamaanka ah WhatsApp groupkaas aan soo geliyay aan kula hadlay dhaafa khasaaraha ka imaanaya dad diidaan dhibka ka imaanaya wixii dhammaan ku ugu tusaale xildhibaanada qaarkood waa la qaateen qaarkood waa diideen dabcan ko public waaye weli website-yada qaarkood ku jirtaa artikelada aan qoray Soomaaliya iyo maqal article la yiraahdo qoray oo aan uga hadlayay xukuumadda inaan laga hor imaanin in la meel mariyo inaan la diidin midkoodna labada nimo odayaasha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha maalin inta telefoon ii soo diray naga kaalmay ima dhihin dowlad Soomaaliyeed iyo responsibility-ga aniga as oday Soomaaliyeed ahaan isaaran yaan intaasoo dhan u yeelay dowladdu waa ogeeday 100 iyo jajarka xildhibaan diidmada ay keentay 200 iyo intaasoo xildhibaana baa aqalka hoose ansixisay meeshaasi dowladdu ku meel martay saaxiibkan waa soo garab istaagnay intii ka dambeysay marka maadaama uu taasna na weydiisan tii kalena weydiisan ayada lafsadeeda waa waxay indication noqon kartaa waxaan dhahnay space aan siino talo hadduu weydiisto aan la talino kaalma hadduu weydiistana aan kaalmayno isaga iyo madaxweynahaba nama weydiisan maalin intana soo waceen aniga soo waceen ama siyaasiyiinta kale inta soo wacaan madaxweynuhu meeshaan inaad naga kaalmaysaan rabnaa ama meeshaan inaad naga tiraadaan rabnaa imayan dhihin anigana isbaysaan si dalka taariikhda inta ugu badneed ee weligii Soomaaliya aan ka maqnaado yaan ka maqnaay toban bilood ayaanan dib ugu soo noqon Soomaaliya ujeedadeedana wax kale ma ahayn space c dadkii kugu xirnaay dadkii rajo kaa qabay dad baa u arkaba inaad soo degdegtayba maadaama 4 sano xukumaysay waxay ahayd 4 sano in xasan sheekh aan la maqlin dad aaminsan waa kan hadda eedaynta iyo dhaleecaynta sax ma aha ima qabato saxna ma aha dadka dhaayan dad caqli qabo fikriye ma ahan qaba ima qabato aniga dalkan meelan ahayn ma lihi
afar sano maxaa u sii weyso jaanisa geen aadaa aniga beledkan beledan ahaynba maliyey inteen taga baasboor ma qabo hal apartment hal qol oo caalamka meel ka taalo aan ku leeyahay ma jirto intaan deganahayo intaasna jooga meel kale ma aqaan baasboor aan Soomaaliya ma qabo midda kale madaxweynihii hore iyo madaxweynihii kasii horeeyay kii kasii horeeyay inay joogaan dalkan sharaf u tahay inaan madaxweyne dalka ka noqday maan qaxooti u noqona daraadeed laakiin bilcagsi waxaa la dhihi karaa soo laabo meel deg nin oday ah oo madaxweyne 4 sano dalkan ka ahaa maxaan ku ilaahdaa 4 sano jaanis la siiyo nimankan maalintii ka dhamaatana haddii tala aadan u horumarin karin intooda ku carqaladaynin marka waqtigoodu dhamaado laba arrimood jirto talasiismo waa wanaaga iyo dhinaca fiican marka loo kaco dhinac kale oo talasiismo ah jirto nimankaani dalka ayaga iska malaha private property ma ahan meel xun hadday u wadaan in laga aamusahay waa dembi dalkii aniga inuu qarka dhacayo ama dhibaato ku soo socota aan u jeedo ama aan dareemayo waa dareenkayga xataa khalad uu noqon karaa waa mid sax ma noqon karo laakiin aniga waxaan ku qasbanahay ka muwaadin ahaan inaan cabiro oon ilaa waxaan waa laga fiican yahay malafka doorashooyinka wareysiga inaan xiraan rabaa oo ajanta kale ugu gudbo macmil si aad la soo degto applicationka waafi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka adigoo ku qoraya waafi marka uu ku soo dego dooro luqadda aad rabto English iyo Soomaali kadibna aqbal shuruudaha isdiiwaangelinta waxaad dooranaysaa dalka aad joogto iyo weliba telephone numberkaaga intaas kadib waxaad helaysaa 6 nambar oo xaqiijin ah kadibna gali 6 nambar ee xaqiijinta isdiiwaangelinteeda awgeed macmil waxaad ku helaysaa 5 daqiiqo oo wicitaan bilaash ah sidoo kale waxaad ku shuban kartaa kaar ku hadal ah dooro halka ay ku qoran tahay recharge oo dalbo xirmada aad rabto inaad ku shubato waxaad doorataa habka lacag bixinta sida Mastercard Visa card iyo sidoo kale calling account kadibna raaci faahfaahinta kaarkaaga hadda waad wici kartaa dalkaaga hooyo sidii hore si ka sahlan oo $5 ku hel 100 daqiiqo oo ku hadal ah mahadsanid macmiil Indomie waxaa laga leeyahay dalka Indonesia oo ka mid ah dalalka Islaamka waxaana ay ku baahday dunida dacaladeeda Indomie waa noodle ugu caansan adduunka